gabadhan hadda aqligeeda waxa uu siiyey inay wejiga daboolato kadibna ay sii jeedsato oo ay futadeeda dadka ay soo aadiso bal ilaah baa idinku dhaariye haddii ay wejigeeda qarsato ay dadku ay weji ka diyaarsato ilaahaygii subxaana watacaala ee ayada abuuray misne caafimaadkan ee maanta layfta kusoo gashay siiyey ma ka xishoon weyday misna ma ka qarsamaysa hadday wejiga dadato waxaa la yaaba inay naag weyn oo maanta aqli iyo qiimo iyo dhaqan iyo diin intaba leh haddana inay sidan usii dhaqanto gabadhan layfta ayay soo gashaa waxyaabo aada u xun ayayna xalay samaysay iyadoo markii horeba hadalladeeda ay ahaayeen hadallo aanan markaasi fiicnayn oo weliba dhanka anshaxa ku fiicnayn wiilka ujeedaan isagana ee u saaran maxaan ku dhaha layfta isagana wejigiisa looma jeedo balse isaga hadda wax xun ma sameynayo ilaa inuu gabadha hadallo oo uu leeyahay maxaan ku dhahday diraca kor u qaad iyo maxaan ku dhaha sidan noogu luxiyo sidan usii jeedsiyo inuu yiraahdo maaha waxaana aaminsanahay haddii wiilkan wax walba uu yiraahdo maanta inay iyada haa imay intaba ay u furan tahay maanta ilaah baa kugu dhaariyay haddii aniga qof intuu ii yimaasaan same yiraahdo aan iska sameey bal ka waran aniga wixii la fiican aan sameyna wixii ila xun waan ka tagay qofka bini'aadankana waxa fiican inuu leeyahay aqli uu kaga tagi karo wixii xun oo markaasi uu ku dooran karo wixii wanaagsan balse haddii qof walba hadalku idho aan u qaadan lahaa noloshaanba intaas uma gaarin tan labaad gabadhan hadda sidaa u niikinaysa maxaan ku dhahday oo leefta sidaa ugu jirta wejigeeda way daboolto horta markii horena codkeeda way yareereyn jirtay oo waxyaabo dhaqan xun saan same iyo waxyaabo dareemi kartiin dhalinyarada qaarkood ee dadka xun ay sameeyaan ayay ayada sameyn jirtay weliba meel publiga oo dadka oo dhan ay wada daawanayaan talabaad ilaa ku dhawaad 300 oo qofood ayaa daawanaysa wad u jeedaan qaybta kore anyways waxay gabadhan ku rabtaa u maleynaya inay caan noqoto haday walba caan noqonayso wejiga maxaan ku dhahay feedad maxay u datay wejiga ay u daboosha wax walba yaa hadaba gabar niikinayso hadaa horta marba niika gabar aragto wax lay ku xigo sababtoo ah gabadhu haday niikinayso gurigeed iyo meelaha oo maxaan ku u qaaska ku niikiso balse hadii aad aragtaan asxaabay qof dad ku hor niikinayso wallahi waxay soo waday wabiga weyn gabadhan day hadda sida dusheeda ay u dhididay darbiga ay gacmaha saartay oo jeedaan marna waxaan ku waxa isaga uu sameey dhaho ayay sameynaysaa sidan sameey haduu dhaho way sameyn sidan sameey haduu dhaho way sameyn wax walba markaas sameynaysaa mal marka hadda gabadhan biri mustaqbal noocay bay yeelanaysaa wax isleeda wejiga looma jeedo biri qofka ka hormaad uu garanaya balse mustaqbal soo ilaahay kama rabto soo ma rabto inuu ilaahay wax walba ku fududeeyo ilaahaygi ku abuuray baaba sidan maxaan ku dhahay wixii uu hadiyad ahaan ku siiyay oo aan ka wada lixdaada laxaad ay kamid yihiin lugaha ay kamid yihiin gacmaha ay kamid yihiin indhaha ay kamid yihiin maxaan ku dhahay hadiyadu caafimaadka maanta qofka caafimaad qaba biri ma caafimaad qabo war ilaahay ka baq war sidan kuma fiicna war waxaan ku radado idiga sida midla saxantay tan labaad dadka qaarkood Soomaalida dadka qaarkood way iska soo caytamaysan walaalayaal ana wixii xun aan soo gudbiyaa waxaan u soo gudbiyaa inay dadka ka waantoobaan wixii wanaagsan de ayaguna waxay leeyihiin gaar balse Soomaalida wixii xun ayaa ku badatay Soomaha markii inaan ka wacyigelino wixii xun anaga la sii sameey ma dhahayo balse waxaan leeyahay iska joojiyo waxa ka waantooba waxaan ilaahay ma ogolo iyo waxyaabo la mid ah maaha markii idinka aad aamintaan hadalkan hadlaba inaan ka wado inaan qof soo bandhigay inaan qof ceebeynay inaan qofkan isaga ceebeysan banaankiisa soo dhigay haddaan aniga soo dhigay page-kayga waxba kuma jabnay sababtoo qofka isaga markii hore soo dhigay soo xagartay ma waxa hadda aniga uu qofka ku cusub yahay haduu ahaa la ama meel inta ka soo qaato kale mobilkiisa kale aan soo gali lahaa yes waxbay ahaaleed balse waa de qof markaan ugu horeyso markaan TikTok ku arko kale aan soo galiyo laakiin hadda anigu ugu horeyn lahaa yes qalad bay ahaaleed waxayna ahaaleed inaan gabar ceebeeyay laakiin de gabar iyo wiil waxay ahaataba qofkii xun in meel public ku soo arko ayaan soo dhigaya ma fahanteen idinkuna waxaan leeyahay qofka idin soo gudbiya waalan iyo qofka idab dara haysintaba ilaa inuu hanuuniyo u duceeyo caafimaad siiyo anyways gabadhana sidoo kale ilaahay caafimaad siiyo wallahi sidan ay sameynaysaa maaha diinta iyo dhaqanka iyo gabarnimadeeda iyo qiimaheeda iyo sharafteeda iyo sharafta waalidkeeda inta waa fiicna marka waxaan leeyahay aqli haday leedahay mustaqbal rabto
ama ay dunida nolol kasii rabto sidaan ma samayseen. waxa laga yaabaa wiilka sidaan uga aqli badanay inuu 10 sano ay ida ka weyntay oo maanta aqligan uu ka aqli badanayo. waxa maqli jiray dheeg iyo aqligu ilaahay isku mid kuma dhigin. qof dheeg yar ba aqli badnaan kara, qof dheeg weyn ay aqli yaraan kara. tan oo kale maxaan ku iraahdaa ilaahaygeedan isku dirtay ummadana waxba u soo bandhigin. naaheed waxa umada kala hortag aan waxba ahayn, adigu waxbay kula yihiin umada kala hortay dadka ka waalay ku iraahdo waxba kuugu raranay wax la mid ah naga tag.